حسن علي معلم بر حسن بوي سيد علي آدن نور ستين بوي محدين محمد أحمد قليف سيجي ayaa dhammaantood loo haystaa inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay isgoyska Kaawagodi ee degmada Wadajir 26 November sanadkii tagay inta la xaqiijiyay ee galay diiwaanka hay'adaha amniga tirada dhimashada ayaa ahayd 12 qof halka ku dhawaad 10 qof ay ku dhaawacmeen dadka ku geeriyooda qaraxaasi waxaa ka mid ahaa Dhamma Maxamed Muxudiin Maxamuud Aboorest iyo hooyadiis Xaawo Xasan Maxamuud oo ay hore aabihiis u direen maleeshiyada Al-Shabaab 2016 fadhigii hore ee maxkamadda ayaa loo ballansanaa dhageysiga markaatiyaal isugu jira ciidankii rugta jooga iyo dhibanayaal waxayna xafiiska xeer ilaalinta la yimaadeen fadhiga hoolka dacwad qaadista maxkamadda markaatiyaashii ku xusnaa kiiska dhinacyada dacwadda ayaa si wada jir ah u weydiiyay markaatiyaasha su'aalaha raaca sharci ee dacwadda u ogolaanayso baarayaasha kiiska ayaa iyagana laga weydiiyay su'aalo cadeemaha ay u soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka hor sheegay in eedeysanaha koowaad ee lagu qabtay gaariga qaraxa iyo kaalinta eedeysanaha labaad ee ah abtiga eedeysanaha koowaad ay wada qaadanayaan mas'uuliyadda mashaqadii ka dhacday Kaawagodi 26 November 2018 qaraxaas waxaa sameeyay isku soo xiray ka soo buuxiya gaariga Sayid Cali wuxuuna u soo dhiibay eedeysanaha koowaad Xasan Cali Macalin Barre xasan markii la qabtay hadii qatartiisu gaarigaas umada ka badbaadi lahayd waxa ogaaday oo soo wacay Xasan Sayid Cali in la haayo markuu ogaadana automatic wuxuu qarxiya gaariga isaga gacantiisa ku qarxiya inuu gacantiisa ku qarxiyana sifooyin cadeynayaan haynaa toddobaad gaarigaas gacanta Sayid Cali ku jiray gaarigaas waxa lagu qarxiya tiknoolajiyada qarxi kartay ee telefoon gaarigaas ku dhex jiri kara intaas haba yaraatay ma jirin Sayid Cali uu soo jaajgareeyay telefoonka ku xirnaa gaarigaas mar kale uu sidiisu Sayid Cali waa farsamo yaqaan isaga gacantiisa ku sameeyay qaraxa isagana awoodo inuu meeshii loogu talagalay markii loo geeyo inuu qarxiyo dukumiintiyo muujinaya saameynta qaraxa furihii gaariga qarxa ayaa ka mid ah waxyaabaha ay la yimaadeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kemey ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in eedeysanayaasha ay bareen dadka Soomaaliyeed dhagar cusub oo aysan ku baraarugsaneyn eedeysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo Al-Shabaab ay la soo baxeen markii hore haday ku gabanayeen diinta Islaamka oo magacyada abu iyo magacyada diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u bedeleen CJ Steam Boy Hassan Boy magacyo noocaas isticmaalaya isqaabkii alkulistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan way dhagar qabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore hadii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkulistayaasha iyo qaabkii maxalli jiray ii sheegay ciyaal in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanaa labada eedeysana sidii xeer aliye ugu horeeyay u codsaday in lagu xukumo dil toogasho ah eedeysanaha saddexaad oo ay cadeynaysa dhaqamadiisa la noolaanta uu bulshada kooxdan la noolaa iyo magaca uu bedeshayba waxaan codsanaa qaab xariga oo u qalanta lagu xukumo wabillahi tawfiiq abukaatayaasha u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in la siiyo xorriyadooda maadaama ay eedeysanayaasha qaarkood baxsad ka ahaayeen Al-Shabaab marka ninkan wuxuu ahaa darawal baabuurtan ilaahay laangaruusulada ka shaqeysa marka ayuu darawalka ahaa muddo badan ay qabteen ay xireen nimankaas ayagoo ku eedeynay darawalada isticmaasha marka uu dambeysay waxa la hadaan dib dambe jidkan u soo martay waa ku dileynaa sidaas iyo uu soo cararay uu dadka gudaha ku deganaa Madiina ku deganaa ilmihiisa iyo reerkiisa waxa jira marka cabso ku joogay meesha hal marag ahna meesha lagu soo qoran qiraal asaga ahna lama haayo weligiisna ma noqon marka 383 oo hadda aadiisa ku qoran waa qof markuu qoro waa inuu wax inuu ku danaysta ama dambiye kale uu ku galo ama waxyaabo kale uu ku farsameeyo hal xabo uu sameeyay male magacaas uu khaldayna waa sheegay wuxuu inuu darooga iga badatay baarasna kuma imaanana magaca saxda asaa sheegay oo yiri warmiyo raaliga hada magaci haday in sheegay magaci saxda ma ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo saacado badan qaatay dhageysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedeysane intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta
cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho.